madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale wuxuu ku laabtay furimaha dagaalka xilli labadii cisho ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho dibna magaalada Muqdisho ugu soo laabtay inuu la kulmo gudoomiyaha midowga Afrika Maxamuud Cali Yuusuf oo shalay ka howleelay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waana safarkii ugu horeeyay oo ku yimaada magaalada Muqdisho tan iyo markii lagu doortay dalka Ethiopia madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhow wuxuu ka ambabaxay madaxtooyada Soomaaliya isagoo dib ugu laabtay gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo laba jeer uu tagay madaxweynaha Soomaaliya waana markii saddexaad oo halkaasi ku laabanayo dhowr jeer wuxuu la kulmay ciidamada macawisleyda kuwa dadka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ugu sarreysa dalka Soomaaliya uu kala hadlay dagaalka lagu jiro kooxda shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagoo u shiisay dheereyd iyo tuutaha wata waxuu diyaaradda helicopterta ciidamada xoogga dalka ay leeyihiin uu ka qaatay garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho wuxuuna ku laabtay gobolka Shabeellada Dhexe dad badan waxay durayaan hanaanka dawladda Soomaaliya ku wajahayso dagaalka kooxda shabaab xilli dawladda lagu eedeeyay in ay xoogga saartay oo kaliya maamulka Hirshabeelle iyo Galmudug xilli maamulada kale ay wali ku sugan yihiin xubno ka tirsan shabaab dawladdana aysan wali dhinacooda aysan jaleecin sida dadka qaar ee siyaasiyiinta ay qabaan ogeysiis farxad leh haddii aad joogtid dalalka Yurub xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha